السلام عليكم كلنتي وعن داوديال كنا soo dhawaada Qool Media Tv waxaanu xogta qarsoon kula wadaagi doonaa nin hooyo soomaaliyeed dilay oo gacanta lagu dhigay iyo ra'iisul wasaaraha dalka Israiil oo wacad ku maray inay duqaymaha ka dhanka magaalada Gaza si wadi doonaan ku soo dhawaada mar kale Qool Media Tv iyo xogta qarsoon. nin la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada dawladda ayaa haweeney ganacsata ahayd waxa uu jimcihii ku dilay degmada balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. haweeneydan oo kamid ahayd haweenka qaadka ku iibiya degmadaasi ayaa la sheegay inuu muran soo kala dhexgalay askari ka tirsan ciidamada xoogga ka hor inta uusan rasaas ku furin. haweeneydan oo lagu magacaabi jiray Saaro Maxamed Cali Kulmiye Saaro Dhegey ayaa u geeriyootay dhaawacyo ka soo gaaray rasaas uu huuyay askarigaasi. goobjoogayaal ayaa sheegay in askariga uu ka baxsaday goobtii uu falka ka dhacay. ciidamada ammaanka oo howlgallo lagu baadigoobayo ninka askariga ahi ka sameeyay degmada Balcad ayaa waxa uu suurta gashay inay gacanta ku soo dhigaan dambiilahaasi. askarigan ayaa haatan ku xiran saldhigga booliska ee degmada Balcad waxayna qoysaska marxuumadda dalbadeen in askarigaasi sharciga la horkeeno. Saaro Dhegey ayaa aad looga garanayo degmada Balcad oo 30 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Muqdisho. diyaaradaha dagaalka ee Israiil ayaa subaxnimadii hore ee Axadda weeraro duqaymaha ka fuliyay magaalada go'doonsan ee Gaza. ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu jawaab celinta duqaymaha ka dhanka Gaza uu sii wadi doono ilaa iyo markii uu dib u bilowday maalintii Isniinta. dagaalka u dhaxeeya garabka hubeysan ee u dagaalamaya difaaca dhulkooda hooyo ee Xamaas iyo Israiil ayaa waxyeelo soo kala gaartay labada dhinac iyadoo uu sii kordhayo khasaaraha ka dhashay dagaalka. dagaalamayaasha Falastiiniyiinta ayaa gantaalo ku garaacay caasimadda Israiil ee Tel Aviv taasoo keentay in dadkii halkaas ku sugnaa ay ka cararaan goobaha duqeyntu ay ku socotay. 3 qof oo reer Falastiin ayaa ku dhimatay duqaymihii saaka aroortii hore ay ka geysteen diyaaradaha dagaalka Israiil magaalada Gaza. kadib dib u curashada dagaalka waxaa sii kordhaya waxyeelada ka dhalatay isku dhacyada u dhaxeeya labada dhinac. 148 qof oo ay ku jiraan 41 caruur, 23 dumar iyo 1,100 dhaawac ayaa la xaqiijiyay dhanka reer Falastiin halka dhanka Israiilna la xaqiijiyay 10 qof oo ay ku jiraan 2 caruur. beesha caalamka ayaa ku baaqday in la joojiyo khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya labada dhinac. baaqa ayaa ku soo aadaya xilli uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabbaas iyo ra'iisul wasaaraha Israiil Benjamin Netanyahu iyadoo oo kulanka qadka taleefanka lagu gorfeeyay xal u helidda xaaladda taagan. Biden ayaa soo jeediyay in Xamaas ay joojiso duqaymaha iyo gantaalada ay ku garaacaysa dhanka Israiil si loo furo wada xaajood laba dhinac. qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqday kulan degdeg ah oo looga hadlayo dagaalada ka soo cusboonaaday Gaza iyo Tel Aviv. isagoo oo ka hadlaya khudbad telefishinka laga sii daayay Sabtidii, Netanyahu waxa uu sheegay in duqaymaha ay sii socon doonaan ilaa iyo inta loo baahan yahay si loo sameeyo wax walba oo suurtagelin kara in la xadido waxyeelada soo gaaraysa shacabka ayuu yiri. dhanka kale saraakiisha Masar ayaa sheegay in Masar ay furtay xadka ay la wadaagto Rafah si ay dhaawacyada culus uga soo daadgurayaan ambalaasyo gaaraya ilaa iyo 10 magaalada Gaza iyagoo u qaadaya dhanka isbitaalada Masar. si kastaba duqaymaha iyo dhimashada magaalada Gaza ayaa sii kordhaysay xilli uu madaxweyne Biden uu mas'uuliyiinta labada dhinac la hadlay. u duceeyo walaalin reer Falastiin in Allah subxaanahu wa ta'ala uu ka dulqaado dhibaatada haysato. muuqaal midkan lamada intaanu ku kulmi doono waxaan kaga tagnaa sida nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.